Munaasabadda daafurka mashruuca tababarka mootooyinka shaqo abuurka Hormuud Salaam Foundation ayaa maanta laga daafuray deegaanka kiiloomitir 13 ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Tababarkan mootooyinka oo ay ka qayb qaadanayeen 80 dhalinyaro ah ayaa mashruuca waxaa maalgeliyay Hormuud Salaam Foundation. Waxaana uu qorshuhu yahay in shaqo abuur loo sameeyo ilaa 1,000 dhalinyaro kuwaasi oo la bari doono wadida mootooyinka kadibna ay shaqo ay siin doonaan shirkadda Rakaab oo ka shaqeysa adeegyada kala duwan. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cismaan oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay inay doonayaan inay shaqo abuurkan ay u sameeyaan 1,000 dhalinyaro oo ku shaqeyn doona xirfadda mooto wadida. Waxaa maanta aan ku faraxsanahay in difacadii koowaad aan tababarkii aan u furayno tababarkaas oo ay ku qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee ku saabsan wadida mootada cilad bixinteeda iyo sida ay u shaqeyn doonaan oo tababarka wuxuu ka koobnaan doonaa dabcan practical iyo galas la fadhiisan doono. waxaa faahfaahin doona insha allahu tacaala maamulaha dugsiga sare ee farsamada Buruuj oo tababarka fulinaya. sidoo kale markii uu tababarka dhammaado waxaa aad mataqaanaa shaqada bixin doona shirkadda Rakaab oo ka shaqeyso hawlo kala duwan haddii ahaan lahayd hawlaha oo deliveryga iyo taksiyada iyo qaybo kale. ayadana dabcan waxaa nala jooga maamulka shirkadda Rakaab oo faahfaahin doona. marka waxaan rajaynaynaa marka dhalinyaradiina inaad tababarkaas si fiican uga faa'iideysataan inta oo socdo sida loogu talagalay ee duruus aad u qaadataan isla markaasna hadhow si aad ugu gudataan shaqadiina sida ugu fiican ee shaqada loo guto. waxaa muhiim ah shaqada aad qaban doontaan inaad ugu shaqeysaan sida ugu fiican oo qofku oo mataqaanaa oo u shaqeeyo taasoo waxtar iyo wanaag u yeelan doonta adinka iyo dadka adeegga loo qaban doono. Tababarkan socodsiinta mootada feekonta ayaa qaadanaya 28 casho. 28 casho kadibna waxaa dhalinyaradan ay si toos ah u shaqo bilaabi doonaan magaalada Muqdisho. Maxamed Cumar Cabdi, Banaadir TV, Muqdisho.